السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير كينو أما درس كينو مانتا وحكا بلا ميا آيات بقول يكوب يكونتناد سورة أنعام وحنا كل ما عندنا دمات آيات نمبر كيدو أو يهي بقول شن لحدا وانا مقردي أفراد جزء سديدات. يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. halkan culimadu waxay dhahdaan aayadani waa wasaaya alcashar, waxaa ku jira 10 dardaaran oo ilaahay u dardaarmayo ummadda. suuratu nisaana waa naga 10 dardaaran kusoo qaadanay: wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a. marka aayadan waa iyo aayadda ku xigta iyo ta kusii xigta, saddexda aayadoodba waxaa ku jira 10 dardaaran. aayadda hore 5, aayadda dambana 4, aayadda ku xigtana mid, saas marka isaga 10kii ay ku buuxsamayaan. marka halkan walaalayaal waa dardaaran ilaahay ka yimid xaggiisa weeye, maaha dardaaran jamaaca muslimiin ah ama koox muslimiin ah ama bashar ou dardaarmayo, waa dardaarankii alle weeye. wax la weyneeyana waxa ugu weyn Allah subxaanahu wa tacaala dardaarankiisa iyo dardaaranka rasuulka sala allahu calayhi wasalam. yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala: qul waxaad tiraa rasuul allow, waxaad ku tiraahdaa dadka, ayuha naasu dadow, hee, tacaalow kaalaya atlu aan idinku akhriyo maa xarama wixii ou idinka xarimay rabbukum rabbigiin calaykum idinka korkiina, waxa uu ilaahay idinka xarimay. bacd mufasiriin waxay leeyihiin dardaaranka la idin dardaarmay in lagu macneeya habboon, waayo dardaaranka waxaa soo hoos galaya in qofka la yidhaahdo lagula dardaarmo nahyin, in wax laga nahinayo oo ha samayn lagu yidhaahdo, iyo in la yidhaahdo waxa samee. dardaaranku marka labadaba soo galayaan. marka wuxuu leeyahay qul waxaad ku tiraahdaa, ilaahay wuxuu leeyahay qul waxaad ku tiraahdaa rasuul allow, dadka waxaad ku tiraahdaa dadow, tacaalow kaalaya atlu aan idinku akhriyo maa xarama wixii au idinka xarimay rabbukum rabbigiinu calaykum korkiina. 1 allaa tushrikuu bihi shay-a, inaydaan ilaahay u shariik yeelin. yacni maxaa yeed ina shirka la dulmun cadiim. yacni waanagii aayado badanna kusoo fasirnay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. yacni shirkigu waa dembiga ugu weyn dad ku dhacan weyn, ilaahayna uu nagala dardaarmaya. wuxuu alla ku xujisiinaya halkan wabilwaalidayni ixsaana, labada waalidna waxaa laydinkula dardaarmayaa alla subxaanahu wa tacaala inaad markaa u ixsaan fashaan, ayuu ilaahay idinkula dardaarmaya. walaa taqtuluu, iyo inaydaan dilin ayaa ama laydinka xaaraantinimeeyey ama la idin dardaarmaya awlaadakum caruurtiina min imlaaqin faqri dartii, idinkoo ka baqaya ama yacni ka baqaya faqri inaad caruurtiina dishaan. alla wuxuu leeyahay naxnu annaga alla ah ayaa narsuqukum idin arsaaqna, idinka iyo wa iyaahum iyagaba. arsaaqdoodu iyo arsaaqdiinuba annagayna saaran tahay, ee ha ka warwarin arrinkaas, dembi ha galabsanina. alla wuxuu leeyahay sidoo kale waxa laydinka xaaraan yeela walaa taqrabuu, ha u dhowaanina alfawaaxisha, waxyaalaha foosha xunle, dembiyada foosha xunle, maa dahara wixii muuqda minha ee dembiyada ka mida, wama batanaya wixii qarsoonba, waxa muuqda iyo waxa qarsoonba. haddaba halkan culimmadu aqwaal fara badan ayaa ku sugan, laakiin in lagu macneeya ayaa habboon. dembiyada guud oo dhan, macaasida guud, wixii muuqda
iyo wixii qarsoonba. laakiin bacd alculamaa waxay leeyihiin fawaaxishta haddii zina lagu macneeyo waxay noqonaysaa maa dahara minhaa waa zinada muuqata sida meelaha ay dumarka xunjirkooda ku iibiyaan oo kale qofku tago meel caan iyo saas oo kale zinada ah. wamaa batana iyo waanagii soo marnay suuratu nisaa itikhaad alakhdaan inuu qofku si qarsoodiya markaa oo saaxiibad u samaysto oo zinaysto. laakiin wax habboon in lagu qaado kalaamka guud ee ah wax walloo xun oo dembiya wixii muuqda iyo ka qarsoonba. alla wuxuu leeyahy walaa taqtuluu ha dilina. sidoo kale waxaa la idinka xaaraan yeelay inaydaan dilin ama ha dilina annafsa nafta allatii taasoo xarama allahu ilaahay uu xaaraan yeelay ilaa bilxaqi, yacni inuu ilaahay xaaraan yeelay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq maahine. halkan culimmadu xadiiska tilmaamaya saddexda shay in lagu dilo marka maxay ahayd annafsu binafs iyo ridda iyo markaas tii kale. laakiin culimada sida imaam shanqeedi oo kitaabkiisa adwaa ulbayaan waxyaalo kale ayay ku darayaan oon saddexdaa uun ahayn, kuwaana laga soo qaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam axaadiistiisa. alla wuxuu leeyahay daalikum kii naasi wasaakum ilaahay wuxuu idinku dardaarmayaa bihi isaga ayuu daalikum kii naasu wasaakum idinku dardaarmayaan bihi isaga alle lacalakum tacqiluun si aad u caqliyeysaan. caqli si aad markaa aad caqli marka alla subxaanahu watacaala aad caqli aad lacalakum tacqiluun si markaa aad u fahantaan ilaahay waxa uu idinku dardaarmayo awaamirtiisa aad u fahantaan aad ugu fartoontaan waxa uu ilaahay idinka nahiynaya aad u barataan ood uga fogaataan. alla wuxuu leeyahay walaa taqrabuu waa kan kii lixaadna halkaa shan baan kusoo sheegna soo maha. walaa taqrabuu sidoo kale waxaa laydinka xaaraan yeelay inaydan u dhowaanin. walaa taqrabuu ha u dhowaanina maal alyatiimi agoonta ama agoonka maalkiisa ilaa bilatii xaaladii iyadu ilaa bilatii xaaladii maahine hiya iyadu axsan wanaaga badnayd ama ilaa bilatii hiya axsan xaaladii iyadu wanaaga badnayd maahine xataa ilaa yabluqa au gaadho agoonku ashuddahu adaygiisa ama qaangaadhkiisa. halkana waxaa laga tilmaamaya weli alla subxaanahu watacaala agoonta xoolahooda ha u dhowaanina oo ka fogaada idinkoo wax samaynaya maslaxa ay ugu jirta maahe. yacni maalkooda in lagu shaqeeyo waa anagii suuratu nisaa bilowgeedana aada ugu soo sharaxnay xuquuqda ay qawaaniinta ay leedahay dadka agoonta hayaay maalkooda si loo dhaqmiyo iyaga guurkooda iyo si guud. bale wuxuu le walaa taqrabu ha u dhowaanina maal alyatiimi agoonta ama agoonka maalkiisa ilaa bilatii xaaladii maahine hiya iyadu axsan wanaaga badnayd xataa ilaa yabluqa au gaadho agoonku ama agoonta ay gaadhaan ashuddahu adaygiisa xataa ilaa yabluqa au gaadho agoonku ashuddahu adaygiisa oo ah markaa qaangaadhkiisa. qaangaadhkiisana culimadu waxay leeyihiin kuma xidhna waqti. culimada qaarkood waxay leeyihiin waa ixtilaamka, laakiin qowl jamhuur ama qowl raajix waxa weeyaan qofku markaa in au lacagta marka loo sii dhiibo au maamuli karo oo waxa weeyaan khasaarinaynin taas marka uu hanuunkiisu marka uu noqonaya. aayad kalena waa tii tilmaamaysa ruushda. alla wuxuu leeyahay wa awfuu buuxiya alkayla oo oofiya beega ama miisitaanka walmiisaana iyo miisaanka bilqisti si cadaalad ah. si cadaalad ah markaad wax beegaysaan ama markaad wax miisaysaan iyo markaad miisaamaysaan si cadaalad ah marka ina waa kasoo raxaysanina ha kasoo badsanina dabadeedna markaa hana ka yaraysan si cadaalad la raba. alla wuxuu leeyahay laa nukallifu ma kalifno nafsan naf ma kalifno ilaa wuscahaa wax karaankeeda amaahine. wax karaankeeda uunbaa lagu kalifaa. ilaahayna waxa uuna saaray oo dhan laa tukallafu nafsun ilaa wuscahaa, yacni naf lama saarin wax iyaga saara wax ay wadoon mooyaane. ilaahayna takaaliifta uuna saaray ama waxyaalaha laynagu kalifay nacam waajibka nagu waxaan awoodnoon weeye. alla wuxuu leeyahay waidaa qultum markaad dhahaysaan ama aad odhanaysaan ama markhaati aad furaysaan facdiluu cadaalad fala. yacni hadalkaad leedihiin
markhaatiga aad furaysaan shay wallo marka aad samaynaysaan dhexdiisa ku cadaalad fala walow kaana haba ahaado kan lagu markhaati furayaay daa qurbaa mid qaraabo saaxiiba alle wuxuu leeyahy wabicahdi illaahi ilaahay ballankiisana awfuu oofiya daalikum kiinaasuu wasaakum ilaahay idiin dardaarma idinka bihi isaga lacalakum tadakaruun si aad u waana qaadataan marka halkaas marka 5 iyo 4 mid baa dhiman 9 soma waxaan kii tobnaadna wa anna haadaa kani siraatii waajidkayga buu leeyahay alla subxaanahu watacaala mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan fattabicuuhu raaca walaa tattabicuu ha raacina walaa tattabicu subula ha raacina dariiqyada fatafaraqa si ay haddaad raacdaan dariiqyada fatafaraqa way idinkala tegsiinayaan way idinla kala tegtegayaan walaa tattabicu raacina asubula dariiqyada fatafaraqa bikum oo idinla kala tegtegaan can sabiilihi alla subxaanahu watacaala jidkiisa ay idinkala kala tegtegaan alla wuxuu leeyahy wa anna haadaa kani siraatii waa jidkayga mustaqiiman xaaluu yahay mid toosan fattabicuuhu raaca walaa tattabicu subula hana raacina dariiqyada haddaad dariiqyada raacdaan fatafaraqa bikum way idinla kala tegtegayaan can sabiilihi jidkiisa ay idinkala kala tegtegayaan daalikum kiinaasu wasaakum idiin dardaarmay bihi isaga daalikum kiinaasu wasaakum idiin dardaarmay rabbigiin bihi isaga lacalakum tattaquun si aad ilaahay uga baqdaan marka halkan waxaa ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu xadiis ayaa ka sugan inuu ku yidhi saxaabada maalin isagoo la jooga inuu dariiqu jeexay ushiis marka dariiqu saa dhulka ugu jeexay dariiqii markuu saa u jeexay ayaa xaggiisa midig iyo xaggiisa bidixna dariiqyo yaryar ayuu rasuulku ku sawiray marka uu ka jeexay markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dariiqa toosani yani hadal macnihiisu uu yahay waxa weeyaan anigu dariiqa ilaahay ii faray lan ay tahayna qofkii qaaday oo ku badbaaday marka qofka dariiqa qaaday uu badbaadaya dariiqyada kale haddaad marmartiinna wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam naar bay idin geynayaan ilaahay subxaanahu watacaala dariiqa toosan aynagu hanuuniya alla wuxuu leeyahy thumma intaa kadibna yani intaa kadibtan halkani maaha kitaabka qur-aanka inuu ka dambeeyo kitaabka nebi muuse kitaabka nebi muuse calayhi salaatu wasalaam isagaa ka horeeyey kamaa huwa macluum laakiin thumadan culimmadu waxa weeyaan sheekadaa laga soo sheekeynayay ayaa haddana lagu xujisiinaya sheekadii nebi muuse marka waa xagga sheekahan ikhbaarka weeyaan thumma warka aan ka soo sheekaynay kabacdi aataynaa waxaan siinay oo iminkana la idinka sheekaynayaa laydin sheegayaa aataynaa thumma intaa kadibna aataynaa waxaan siinay muusa nebi muuse alkitaaba kitaabkii baan siinay towraad ahaa tamaaman alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay taamyeelid darteed cala aladii kii korkiisa oo nebi muuse ahaa calayhi salaam loo taamyeelo ilaahay nimcadiisa cala aladii kii axsana wanaajiyey oo nebi muuse ilaahay nimcadiisa iyo fadligiisa u taamyeelo korkiisa halkan culimmadu aqwaal fara badan ayay xusaan laakiin haddaynu sheegno 3 macno oo aayadan qaadi karto aan sheegna ka hore waxa weeyaan in la yidhaahdo waxa weeyaan waa mafcuulan liajlihi oo sida marka aan idhaahno tamaaman taamyeelid dartii oo ilaahay ku taamyeela nicmadiisa cala aladii kii korkiisa oo nebi muuse axsana wanaajiye wanaaga falay ayib taas waa mid talabaadna waxa weeyaan in la yidhaahdo taasna waxaa ku soo aroortay qiraa'a ghayra mutawaatira oo markaa alladiidaas ay noqoto jins oo la yidhaahdo tamaaman waa dhammaystirid lagu dhammaystirayo cala aladii axsana kii wanaajiyey markaa waa jinsi kaasi yacni waa kuwii wanaajiyey oo cala aladiina kuwii wanaajiyeyoo nebi muuse qoomkiisa ka ahaa kuwaas markaa taa la yidhaahdo marka qiraa'adaasi hadday sax noqotona oo yani sanadkeedu sax noqdo markeedna waa lagu fasiri karaa sidoo kale culimadu waxay dhahdaan faacilka ilaahay ayaa loo celinaya oo macnaheedu wuxuu noqonayaa yacni haadaada ayaa markaa faacilkaasi ayaa alla ayaa ilayh markaa oo wuxuu noqonayaa tamaaman liikmaali calaa maa axsana allahu bihi ilaa cibaadihi kani markaa waxa weeyaan ilaahay ikmaal ama uu dhammaystirayo wixii uu ilaahay wanaagga addoomihiisa u galay
markaa saddexdaa qowl ayaa ku jira, laakiin haddaan kaa hore iska qaadan kaasa marka ugu rajaxsan ayaad moodaa. wahada kani kitaabun cafwan uma intaa kadibna aataynaa waxaan siinay muusa nebi muuse ayaan siinay alkitaaba kitaabka tamaaman marka waa mafcuulan liajlihi baan ka dhigaynaa. haye muxuu noqonayaa taam yeelid darteed cala aladii kii korkiisa lagu taam yeelo ilaahay nimcadiisa iyo fadligiisa iyo karaamadiisa axsana wanaajiyey oo markaa nebi muuse calayhi salaam wa tafsiilan iyo kala faahfaahin ama kala bixbixin dhexdeed kala bixbixin ama faahfaahin darteed likulli shayin shay walba la faahfaahiyo wa hudan iyo hanuun dartii waraxmatan iyo naxariis darteed lacallahum waxay mudan yihiin biliqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa yu'minuuna inay rumeeyaan. wahada kanina kitaabun waa kitaab anzalnaahu aan soo dejinay buu leeyahay alleh mubaarakun kaasoo la barakeeyey oo khayrkiisu fara badan yahay fattabicuuhu raaca wattaquu fattabicuuhu kitaabkaa raaca qur'aanka ah wattaquu allana ka baqa lacalakum turxamuun si alla subxaanahu watacaala ou idinku naxariisto. alle wuxuu leeyahay an taquuluu ay lianlaa taquuluu si aydaan u odhan mushrikiintiinan carabta hee inamaa unzila waxaa lagu soo dejiye uun alkitaabu kitaabka calaa daa'ifatayni laba kooxoodoo min qablina annaga naga horreeyey oo reer bani israa'iil ah iyo reer nasaarada yahuudi ah wain kunnaa annaguna waxaan ahayn can diraasatihim akhrintooda iyaga akhrintooda ay akhriyaan ama kutubta akhrintooda lagaafiliina kuwii markaa moog ayaan nahay. marka alle wuxuu leeyahay si aydaan u dhihin kutubtaa samaawiga waxa lagu soo dejiyo yahuudi iyo nasaaradii oo annaguna af kaluu ku soo degay oo maanu garanayn akhriskiisa, si markaad cudurdaar u raadsataan cudurdaarkaas si loo jiro awgeed ayuu ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkan idinku soo dejinaya. ayib alla subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay sidoo kale aw taquuluu ama inaad tidhaahdaan low anna unzila haddii lanagu soo dejin lahaa calayna annaga korkayaga alkitaabu kitaab oo ilaahay xaggiisa lanagaga soo dejin lahaa lakunnaa waxaan ahaan lahayn ahdaa kuwo ka hanuun badan ama ka hanuunsan minhum kuwa. faqad jaa'akum waxa idin yimiday buu leeyahay alleh bayinatun xujacad baa idin timiday min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka timiday wahudan hanuun ayaa idinka yimid rabbigiina xaggiisa waraxmatun naxariis ayaa idinka timid alle subxaanahu watacaala xaggiisa. alle wuxuu leeyahay faman adlamu yaa ka dulmi fal badan ama yaa ka dulmi badan miman cid kadaba beenisay biaayaatillaahi alle aayaadkiisa wasadafa oo ka jeestay canha aayaadka xaggooda. wanagii markaa munaasabooyin kala duwanna sheegnay aimada sida ibn xaafid ibn kathiir ee ilaahay uu siiye malaka tafsiiriya tafsiir ilaahay awooda uu siiye ku fasiraan. halkan waxay ku fasiraan yidhaahdaan wasadafa iyo wasadda iyo marka meelaha ku soo aroorto macnaheedu waxa weeyaan in markaas isagaa marka hore naftiisa ka jeediyey dadkiina uu ka jeediyey. alle wuxuu leeyahay sanajzi waan ku abaalmarinaynaa waan abaalmarinaynaa alladiina kuwii yasdifuuna ka jeedinaya can aayaatina aayaadkayaga dadka ka jeedinaya suu alcadaabi cadaabkiisa xun baan ku abaalmarin doonaa bimaa kaanuu kii sababtiisa yasdifuuna ay markaa ay uga jeesanayeen ama kii ay uga jeedinayeen markaa alle subxaanahu watacaala dariiqiisa ay ka jeesanayeen jazaan calaa insiraafihim wa icraadihim canha. aayaadka jeedsiga ay ka jeesanayeen ayuu alle subxaanahu watacaala ku ciqaabi doonaa. alle wuxuu leeyahay hal yanduruuna ma sugayaan ilaa an ta'tiyahum inay u timaado maahine almalaa'ikatu malaa'igtu oo malaa'igtu ay u timaado macnaheedu waa maxay malakulmowdka iyo acwaantiisa kuwa taageeraya ay u yimaadiin si ay ruuxdooda u qabtaan arwaaxdooda ay uga qaadaan adduunyadan aw ya'tiya ama u yimaado rabbuka rabbigaa yacni allana subxaanahu watacaala maalinka qiyaamo u imaan doonaa imaansho isaga u qalma. wuxuu le marka alleh aw ya'tiya aw yimaado rabbuka rabbigaa si au u kala xakumo maalinta qiyaame. aw ya'tiya ama au yimaadaan bacdu aayaati rabbika aw ya'tiya ama au yimaadaan
bacdu aayaati rabbika aayaadka rabbigaa qaarkood. haddaba alle wuxuu leeyahay yowma maalinta ya'tii ay yimaadaan bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa qaarkood laa yanfacu ma anfaco nafsa naf ilaa laa yanfacu ma anfaco nafsa naf iimaanuhaa iimaankeedu ma anfaco. marka halka culamadu waxay dhahdaan bacda aayaati rabbika waxaa ka mid ah in qoraxdu ay ka soo baxdo galbeedka. hadday qoraxdu meesha ay u dhacdo ay ka soo baxdo, alle wuxuu leeyahay maalintaasi laa yanfacu ma anfacdo nafsa naf iimaanuhaa iimaanka ay rumayso maalintaa qoraxdu ay ka soo baxda meeshay u dhacdo ma anfaco. naftaasoo lam takun aan ahaan jirin ama aan ahayn aamana tii rumaysay min qablu horaan, aw kasabat ama kasbatay fii iimaanihaa iimaankeeda khayran khayr markaa shaqaystay oo kasbatay. marka halkani waxa weeyaan iimaanka marka qoraxdu ka soo baxdo xagga ay u dhaco dadkoo dhan baa wada rumayn. marka gaalka iimaankiisu marka waxba ma tari. alle wuxuu leeyahay qul waxaad ku tiri rasuul allow kuwaa mushrikiinta ee ku beeninaya intadiruu suga ina anagu muntadiruuna kuwa sugaya un baan anaguna. halkana tahdiida marka ku jira waciid baa ku jira halka. alle wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diintooda qayb qayb ka dhigaya kala geeyey wa kaanuu ee noqday shiican koox koox lasta minhum adigu ka mid ma tihid kuwaa fii shayin shaynaba ka mid ma tihid. markaa kuwaa kala baxbaxay adigu sina uga mid ma tihid buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala. inamaa amruhum amarkoodu wuxuu yahay uun oo u ahaaday ila allahi alla xaggiisa unbuu yahay. uma intaa kadibna yunabi'uhum ilaahay uuga warrami doonaa bimaa kii sababtiisa kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwii sameey. alle wuxuu leeyahay man jaaa bilxasanati qofka la yimaada xaalad wanaagsan falahu wuxuu leeyahay cashru amhaaliha. man jaaa qofkii la yimaada bilxasanati man jaaa qofkii la yimaada bilxasanati xaalad wanaagsan falahu wuxuu leeyahay cashru amhaaliha 10 laab ayuu leeyahay. marka culamadu halkan waxay dhahdaan inta u yar ee wanaagga la laalaabayay waa 10, inta ugu badanna waa 700 iyo wixii kasii sarreeya. alle wuxuu leeyahay waman jaaa qofkii la yimaada bisayi'ati xaalad xunna falaa yujzaa lagu abaal marin maayo ilaa mithlaha midii au la yimiday maahine. yacni wixii uu sameeyey mid kamida uunbaa lagu abaan maranaya. ilaahi subxana wataala raxmadiisa qofka wanaag gala 10 baa loo laalaabi 700 baa loo laalaabi intee ka badan. qofka xumaan la yimaada xabad xabadun weeye. wahuwa allana wahum iyaguna laa yudlamuuna kuwa la dulmiyaya maaha oo wax ziyaada alla saari maayo. qul waxaad ku tiraa rasuul allow inanii hadaanii aniga waxay hanuuniyey rabbii rabbigay ayay hanuuniyey oo halkuu igu hanuuniyey ilaa siraatin jid buu igu hanuuniyey mustaqiimin toosan diin ayuu igu hanuuniyey diin buu igu hanuuniyey qiyaman toosan. qul waxaad tiraa rasuul allow inanii aniga hadaanii waxay hanuuniyey rabbii rabbigay ayaa i hanuuniyey ilaa siraatin jid buu igu hanuuniyey mustaqiimin toosan diin buu igu hanuuniyey qiyaman toos ah ama diin toosan taasoo millata ibraahiim milladiisii ama diintiisii ah. ibraahiimkii markaa xaniifan isagu xaqa u leexday ee shirkiga iyo baatilka oo dhan ka leexday xaqa u leexday. wamaa kaana ma ahayn ibraahim min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahayn. alle wuxuu leeyahay qul waxaad tidhaa rasuul allow ina salaatii salaadaydu wa nusuki iyo gowrucaygu wa maxyaaya iyo noloshaydu wa mamaatii iyo dhimashadaydu lilaahi ilaahay bay u ahaatay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah laa shariika wax lala wadaajiye ma laha lahu alle subxaanahu wa tacaala wax lala wadaajiyo cibaadada ila subxaanahu wa tacaala ma jirto. wahuwa subxaanahu laa shariika lah ilaahay uu ka hufan yahay ceeb oo dhan wax shariik ah ma laha. wabidaalika sidaasaa umirtu la i faray wa ana aniguna waxaan ahay awalu lmuslimiina kuwa u hogaansama ama yacni waxaan ahay kuwa u hogaansama ka ugu horeeya.
وبذلك ساسا أمرت الله فري وأنا أنيقنا وحنا هي أول المسلمين كوا جان سما كوهر الله وحليه قل واحد كنت رسول الله غير الله ما إلهي غير كيبان ما إلهي وحن أهين بان أبغي رادني ربي كرادين أما ربي هان أرادين وهو الله رب كل شيء والبر ربي جيس إسقوه ولا تكسبوا ما كسبته كل نفس دمانتيد ما كسبته يعني دمانتيد ما كسبته وما شقيسته الشقو هي إلا عليها عديس شقيسته وحي شقيستي أيا دشيدا وحي كسبته أيا دشيدا بالله سبحانه وتعالى ولا تزر ما حنبارته وازرة مد دنبابتي وزر أخرى مد كلا دنبجيد ثم انت كدبنا إلى ربكم ربجين حقيسا مرجعكم نقط كينو أو يهي فينبئكم الله وحو إذن كورمي بما كي كنتم مضاهيدين فيه دحديسا تختلفون كويس خلافا أيضا مفسرين تقاركود سيدا ابن جزي الكلبي وعات الماميان إن أي كفارتو أي رسولك أي صوبتو أهيد أي رسولك كفارتو نمانك يقول رسولك يكون هذين ويقول أنا إلهي ذا أنا لا عابد أنا قلنا كاغا أن كل عابدنا مركاسو الله سبحانه وتعالى وكويري وار واحد كتر هذا رسول الله ما الله إلهي غيرك مياه ربي كرادين إسوغو وحو البابور كوان أتكاهد ليسين إيا إذنك إيا آنيغا إيا مخلوقات كوردن بيساقا أبور سيدي مركا أرنكاسي أو وحد إكرا مركاس ماها لكن هل كان مجرت وحر وايدة فلا يصح هذا الكلام يعني سبب نزول ماها مركا يعني waxaan u xuso si marka loo fahmo alla wuxuu leeyahay marka qol waxa tiraahdaa rasuul allah kuwa mushrikiinta adigu beenay wax ku tiraahdaa ghayr allah ma ilaahi waxaan ahayn ba abqi ka raadin rabban rabbi ahaan wa huwa allana abqi raadini rabban rabbi ahaan wa huwa allana rabb kulli shay walba rabbigi isagoo ah ولا تكسبوا ما كسبته كل نفس نف ولما شقيسته ما سميسته شقة ما سميسته أما ما كسبته شيء إلا عليها هدي أي شقيسته شيء أي شقيسته كركيدا يدش هذا أيوم بو يهي ولا تزير ما حنبارته وزيرة مد بابتي وزر أخرى مد كلا بجيد ثم أنت كدبنا إلى ربكم ربكين حقي ساعة مرجعكم نقط كين أو يهي فينبئكم ويدين كورمي بما كنتم كيادا هيدين فيه دحدي ستختلفون كويس خلافا الله وحليه آيات داودنا بس سورة أنعام وهو الذي كيويان جعلكم إذن كيالي خلائف كو دولك كوكلا دنبيا ورفع وحكر يالي بعضكم قاركين فوق بعض قارك كلا شودا يعني الله سبحانه درجات أيو كريالي وهو الذي كيو ينجعلكم إذن كيالي خلائف الأرض كوكو كلا دنبايا دولك يعني كو اسبدلي قولا سعونيسا إلهي قولا كلا أيو كيان يرلوك بعمير ينساس ويان ورفع الله وحو كريالي بعضكم قاركين فوق بعض كو قارك كلا دشودا أيو درجات درجوين كريالي هذا محو سيدا إلهو يالي ليبلوكم سي أو إذن انتحامو كان درجة سرعة يسير كان درجة وصبع إلهي لبدأوا امتحاميهن فيما آتاكم ليبلوكم ساء ودينكم امتحامه فيما آتاكم وحي لها ودين سيه إن ربك سريع العقاب ومد عقابتي سؤال دكتور وإنه ألنا لغفور ومد بدافة رحيم ونحريستا والله سبحانه وتعالى على وعلم